dadka canshuurta lagu khasbayo waxaan aaminsan horta iyadoo awal baleeyaan waxa la yiraahdo canshuurtu waa oblig oo waa khasab haddana inay ceeb tahay in qof weyn oo dawlad la soo shaqeeyay haddana galay sheegay ragii dawladii Soomaaliya la soo shaqeyn jiray soddonkii sano baa qofku masaxaya wuxuu ku masaxamaya wuxuu wanaagsanaa wixii burburka baa ka tiraya dhalinyaradi dambe oo yaryarayd oo gadaalka ka timi waa fiican yihiin oo hadii ay canshuurna kuma wagaraadsanba hadii hadda ay canshuur baa jirta ummadda loogu shaqeynaya bixiya oo ay bixiyana ku maasan yihiin laakiin ninka weyn oo ragga aniga ilaa leeg iyo wixii ga waaweyn ah oo canshuurta yaqaanay inay wax ku soo barteen iskuulka dugsiga hoose galaaska koowaad ilaa jaamacad wax waalidka laga qaado dhaqaale ay ma jirin mar baan dugsiga beeraha dhigan jiray ceergaabo markii dambe aan jaamacad dhiganaynay qolka aan deganahay iyo sariirta iyada iyo cuntada iyada iyo even maalinta khamiista lacag la siiyo ardada la siiyo waxaas waxay ahayd free dadkii waxa wax ku soo bartay haday maanta canshuur diidan ka war soo ceeb ma dadkii waxa wax ku soo bartay dawlad wax walba u qaabilsan ardayga dadkii wax ku soo bartay maanta inay canshuurta diidaan waa ceeb waxaan rabnaa guddigan hadii lahayd masiisa inuu shaqeeyo haday hawshu fariisatana ay noqoto ay noqoto computerka xog ku jida bisha markay 25 tahay gaadho waxba ha dhaafinina bisha dambe 15keeda loo qabanaya qof walba 25 bisha waa warqad la qorayaa 25 bisha 15 bisha waana inay noqoto bil walba in hadiiba hadda hawshu soo dhamaatay follow up ku waa inuu sidiisa u socdaa oo dhaqaalahaas uu sida u yimaado runtii aad baa ugu mahadcelinaya shaqada qabateen waxaan kaloo rabnaa inaan halkan kaga hadalno baabuurta kiradooda iyadana waa la bilaabayaa midkii baabuur kiraysta qiimaha uu ku kiraysay isaga u taalaa waxa adiga faa'iido ku lahayn ma kiraysanaysid marka aniga hadda gaari kiraysanayo haddaan 70 baan ku siinayaa oo ila gorgorto aan 70 ku heshiino 70 kaas dawladda canshuur ku leeyahay waa ugu yar tahay iyo waa ugu badan tahay iyo ma jirto canshuurtuna ma laha yaraan iyo badnaan qofka shaqaalaha dawladda oo milyanka qaata oo cleanerka ama waajmaanka ah canshuurta ka gooda hadii laga qaadi waayo qof lacag ka badan ay soo gasho oo Soomaaliya hadii laga qaadi waayo waa dambi ilaahay agtiis iyo adduunka dambi bay ku tahay ninka milyanka qaadanaya ama $50 qaadanaya ama $30 qaadanaya markii canshuurta inta laga 17 ku dhacdo nin gaari ka helaya bishii 1500 inuu canshuur bixin waayo waa dambi waxaan kaloo rabnaa intaas inuu joogno dalka inaan kala barno dadka shoobriistayaasha ah oo markii canshuurta la bilaabo gudiyo iyo isabaabul iyo waxa ka shaqeeya waxaan qabaa inta laaba sharciga laga qaado xeeraantu waa ka qaadaysaa laakiin in aan haba yaraateen xariis lagu gali qofku doonaha waa sodog waa seedi waa walaal waa eedo canshuur diide haddaan noqono niman ilaahay ka furtay oo lacagta ay dhiibeen bixin waayay umadu xaq way markaa waxay u leedahay inay lacagta noo dhiibooyin laakiin haddaan qabanayno lacagta aan noo dhiibtaan inaan tusayno meesha aan gelinay oo hadda aan ka bilaabnay sales tax inaan lacagta noo soo xarooto iyo saa u bixinay aan tusi doono oo mushaharooyinka iyo dakhliga na soo galay bisha June July August aan ogol lahay in aan hortiina keeno waayo hortooda aan lagu barxaa baahida dawladdu u baahan tahay dhaqaale iyo waxa ina soo galaa bayna samaa'i wal ardi isu jiraan mar walba kharashka aan u baahanahay baa ka badan dakhliga soo gala laakiin waxa ogol lahay in la xisaabtamo sida haddaan sameynayno qofna canshuur ku cafinmayno shoobaraan sameynayna waa isurursanaynaa saasaan yeelaynaa inay dambi ku siyaayso maahay ku cafinmayno qof baqayla ummadan laga talagelinayo qofku doonaha ahaado sheekh iyo shariif ahaado qof baqayla ummadan laga talagelinayo ummadda inta fiican baa badan ummadda inta wanaagsan baa badan ummadda inta ogol in waddanka horumar ogol baa badan marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin